Madaxa horumarinta iyo tababarada isboortiga gobolka Banaadir Daud Axmed Dheere sidoo kalena ah macallimiinta xulka kubadda kolayga ee dalkeena Soomaaliya ayaa xalay booqasho ku tagay York University oo ku taala magaalada Toronto ee dalka Canada waxaana uu halkaasi kula kulmay macalinka kooxda kubadda kolayga iyo sidoo kale Axmed Cali oo kaaliyaha macallin sidoo kalena waxaa garoonka ku sugnaa Cumar Shidano oo ah ciyaartoyda ka ciyaarta jaamacadda Canada. Cumar waxa uu nambarka 14aad ugu jira gool dhalinta jaamacadda Canada oo dhowr mar uu Cumar ka soo qayb galay wuxuuna diyaar u yahay inuu markaasi u ciyaaro xulka qaranka Soomaaliya. Macallin Daud oo markaasi ku howlan sidii xulka qaranka dalkeena Soomaaliya ee kubadda kolayga loo horumarin lahaa ayaa markaasi ku howlan inuu soo xulo qaybo ka mid ah ciyaartoyda ka ciyaarta dalka Canada gaar ahaan magaalada Toronto waxaana la filayaa in ciyaaryahano badan oo xirfad u leh inay ka soo baxaan sida Cumar waxa uuna ka mid yahay ciyaartoyda ugu goolasha badan tartanka jaamacadaha markaasi laga ciyaaro dalka Canada. Sidoo kale macallin Daud Axmed Dheere waxa uu ka mid yahay madaxa horumarinta isboortiga gobolka Banaadir waxa uuna qayb weyn ka qaatay isbedelada ka jira isboortiga dalka isagoona soo saaray ciyaartoy kala duwan oo ay markaasi ugu horeeyaan ciyaaraha kubadda kolayga iyo ciyaaraha kale ee dalka laga ciyaaro waxa uuna ku howlan yahay sidii uu isboortiga qayb ugu noqon lahaa horumarinta iyo sidoo kale mashaariicda lagu doonayo in lagu horumariyo ciyaaraha kubadda kolayga ee dalkeena Soomaaliya. Macallin Daud waxa uu markaasi ka mid ahaa ciyaartoydii markaasi sida weyn ugu soo dhex muuqday horyaalka kubadda kolayga iyo sidoo kale xulka qaranka Soomaaliya ee kubadda kolayga waxa uuna doonayaa in sanadkan isbedelo waaweyn oo la taaban karo ka gaaro guulaha isboortiga iyo sidoo kale horumarinta kubadda kolayga ee dalkeena Soomaaliya iyo kan gobolka Banaadir.